بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo gudbinaynaa war saxaafadeed shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo oo shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan kadib markii la dhageystay warbixintii wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda iyo wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubbaland ay kaga warbixiyeen heshiiskii ka dhacay Seychelles kaasoo si ku meel gaar ah loogu heshiiyay ogolaanshaha soo saaridda shatiga kalluumaysiga qaasatan tuna oo ay wada saxiixeen dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay dhammaan dowlad goboleedyadu u tanaasuleen aqbaleenna sidii ay dowladda federaalku wax u rabtay hase yeeshee waxa wafdigii ka socday dowladda federaalku diideen inay hogaamiyaan ama saxiixaan qodobadii ay iyagu soo jeediyeen kuwaasoo ku adkaa dowlad goboleedyada inay aqbalaan laakiin ay u tanaasuleen danta qaranka kadib markay dhageysteen golo wasiiradu waraysigii wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee dowladda federaalka ah ee ku saabsanaa inaysan jirin wax heshiis oo lagu gaaray Seychelles ama uu burburay heshiiskii Seychelles loo tagay kadib markaan helay nuqul shatiyo la siiyay shirkado shisheeye oo kalluumaysi oo dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay xubnaha dowladda federaalkana aysan ka warqabin shatiyada waxaa noo soo baxday in dowladda federaalka Soomaaliya aysan diyaar u ahayn in la wadaago kheyraadka dalka waxay dowlad goboleedka Jubbaland go'aansatay inaan la aqbali karin habka ay dowladda federaalka Soomaaliya u maareynayso kheyraadka dalka sidaa awgeed dowlad goboleedka Jubbaland waxay xaq u leedahay inay ka faa'iideysato kheyraadkeeda inta laga helayo nidaam la isla ogol yahay oo lagu wadaagayo kheyraadka dalka xogaa yar tafaasiil aan rabaa inaan ku daro war saxaafadeedkii tafaasiishaas oo heshiisyadii la gaaray lagu gaaray Seychelles oo dhammaan dowlad goboleedyadu ay saxeen dowladda federaalkuna sidii ay rabtay wax loo qoray waxaan rajaynaynaa dowladda federaalku inay ka fiirsato ereyadii ka soo baxay wasiirkeeda kalluumaysiga ee uu ku sheegay heshiiskaas inuu waxba ka jirin heshiiskaas siduu u qoran yahay waa sidii dowladda federaalka ay wax u soo diyaarisay weeye annaguna sidaas aanu rabnay wuu adkaa wuu noo cuntami lahaa laakiin si aan dowladdan u garab istaagno ayaanu u ogolaanay waxaan sheegayaa halkan ka cadeynayaa dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu xubnihii u matalayay heshiiskaas way la soo hadlayeen waxayna ku dhiirigelinayeen inaysan ka soo noqon meeshaas iyagoon heshiis saxeen madaxweyne mudane Axmed Maxamed Islaan qadku noogu jiray mar walbana wuxuu oranayay Soomaalinimada hala taageero hana ka soo tagin idinkoo saxiixin heshiiskaas waanu ogolaanay qodobadii oo dhan waan sii daynay dowladda federaalkan hawshii gacanta u gelinay hadday noqon lahayd ruqsadda soo saaristeedii hadday noqon lahayd dhaqaalihii ka soo xarooda sidii meel loo dhigi lahaa intaba waanu ka tanaasulnay laakiin waxaad moodaa dowladdeennii inaysan diyaar u ahayn waqtigan in kheyraadkii la wadaago waxaan aragnaa oo halkan aan ku hayaa nuqul shatiyo dowladda federaalku ay soo saartay oo ah maraakiib ka kalluumaysanaysa kheyraadka baddeena aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu